dhalinyaradan qalin jabisay oo tiro ahaan dhammaan 36 qof ayaa labadii sane ee la soo dhaafay xirfadda saxaafadda ku baranayay xeryaha Dadaab waxaana dhalinyaradan oo isugu jira Soomaali iyo dhalinyaro kale oo qaxoonti ah oo ka soo jeeda dalal kale oo Afrikaan ah waxbarashadan u fidisay hay'adda Filmed International oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha Dadaab xafladda qalin jabinta dhalinyaradan waxaa ka qayb galay madaxa hay'adda Filmed International ee dalka Kenya مسؤولين kala metelayay hay'adaha kale ee samafalka hogaamiyaasha bulshada qaxootiga ah iyo dadweyne kale dhanka kale waxaa munaasabada lagu xusmay fanaanka Xasan Gantaal oo isna goobta ku soo bandhigay heeso kala duwan dhalinyaradii qalin jabisay qaarkood oo dhamaadkii munaasabada la hadlay Jubaland TV ayaa ka hadlay dareenkooda magacay waa Ibrahim Maxamed Mukhtaar magac dheer ee jireedkiisa waxaan ku noolahay xilada waxaana ka mid ahay ardayda maanta ka qalin jabisay saxaafadda ama journalism waxaana baranay waxa ka mid ah filmmaker ama photographer aad iyo aad baan u faraxsanahay shucuurteeda lama soo koobi karo mana aaminsaneyn in heerkan hadda aan taagnahay aan gaari doono haddana alxamdulillah waxaan rajeynayaa heerkan heer ku sareeyo maanta waxaan qalin jabinay muddo 2 sano waxaan baranaynay maanta xirfaddan waxaa u adeegsanay inaan bulshada dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan ugu adeego si wanaagsan aan wax ugu qabto marka hore magacayda waa Cabdi Xashin waxaan bartay saxaafadda waxaan soo socday fasal ilaa 2 sano aan soo wadnay maanta aan u gudbinay bartay aqoonta hadda aan leeyahay waa مساعدين دكتور ودان بعضه إن كل شيء شيء أنا هو أديو عارفين إن شاء الله إن المرسى كجارو مستقبل كرجالنا إن صحافتنا هرسنا كجارو ما يعيق أستاذ حنوا أحمد آدم بره وعن كم داعي أرضية وحكبرته يعني كلية صحافة أو أي قرشكرين نسي هيدا فيلم مركا وحياة أمبرنا وحكميته ماس كوميونيكيشن كلية صحافة أنت آدي وفرح سنة مانتا ما دام رجوا مانتا غلبينا وحي علمي أنا صبرنا مدة لو سنة قدام بس لو كنت زي تمك لو كنت سالي تمك كنت درين كي آدي وصل مانتا لمس كوبي كرو ملعي ونادي محمد أيو waxaan maaragtay ka hadlayaa waxaan ka qalin jabiyay journalism iyo filmmaking luqadda Soomaaliga lagu yiraahdo barashada saxaafadda iyo qaabka wax loo duubo waxaan bartay si wax loo duubo wax alla wax ku saabsan kamera ku saabsan aan bartay sida qof focus loo dhaha sidii magaalo fara badan waxa kale oo bartay sheekooyinka sida loo diyaariyo sida qofka akhrinaya sheekada loo soo jiito warka noocyada ay kala yihiin xeelaasan Ahmed Abdullahi Jamac Ahmed Dere Jubaland TV Dadaab